maxkamaddu waxa uu caddaatay in eedaysanayaasha ay yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo ogay waxayna ku kala xukuntay sida tan: kow, xafsa shariifa cabdulaahi dil toogasho oo ah qisaastii marxuumiinta cabdulmuncim aways cabdulaahi iyo aamina aways cabdulaahi. maxkamadda ayay kasoo muuqatay iyadoo cunug umul ah laabta ku hayso isla markaana waxaa lagu dhawaaqay xukun dil ah in lagu fulin doono oo toogasho ah, taasoo ah qisaas caruurtii ay ku dishay magaalada baydhabo ee gobolka baay 7 abriil isla sanadkan. waa dhacdada argagaxa leh isla markaana saameysayba hal qoys oo ayagu isla dhashay markii aan dhahayna waa caruur wada dhalatay oo hooyadii ay dishay caruurta qaar ka mid ah isla caruurtaas qayb ka midna ay hooyadood weyn doonaan maadaama xukun iyada uu ku dhacay isla markaana dhowaan la filayo in toogasho lagu dilo. waa muuqaalka argagaxa iyo naxdinta leh isla markaana qof walba cadaalad asaga u raadsanayo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. isku soo laabad wanaagsan iyo kulan wacan. muuqaalkan waxa uu ku saabsan yahay dacwad bilihii lasoo dhaafaba iska daba jiitamaysay taas oo ku saabsanayd kiiska 2 caruura oo lagu kala magacaabi jiray cabdulmuncim cabdulaahi aways iyo aamine cabdulaahi aways oo 8 jir iyo 7 jir kala ahaa oo lagu dilay magaalada baydhabo. haddii aan dib idin xasuusiyo kiiska caruurta ayagoo dugsi ka soo baxay ayaa waxaa la sheegay in haweeney eedadood ah oo aabahood uu qabay soo waday ay tiri 2 maalmood sabtida jimcaha iyo khamiista aniga ayaad ila joogaysaan gurigeyga ayaan idin wadayaa soo baxa raaca isla markaana ay u soo wado gurigeeda ay la sheegay inay guriga ay u wadayso balse bajaaj ay soo saartay kadibna fal argagax leh halkaasi ay ka geysatay. caruurta saacado raadintooda kadib waxaa la soo helay meydkooda ayagoo si argagax leh loo dilay. caruurta waxaa lagu dilay toorey oo waxay loo tagay ayagoo dhintay wiilka iyo gabadhaba. muuqaalkooda wuxuu ahaa muuqaal aan la fiirin karin. arrintaas oo magaalada baydhabo iyo dadka agagaaraheeda ku noolba naxdin iyo qalqal weyn wada gelisay. muddo fogba maysan qaadan isla markiiba waxaa la soo ogaaday oo tuhunku uu soo galay ilmaha eedadood oo goobjoog ka ahayd goobta caruurta laga raadinayo guriga dadka barooranayna ka mid ahayd. waa arrinta masiibada ah ee qoyskan taabatay. haddaba kiiskan oo markiisii 3aad maxkamadda lasoo hor fadhiisiyey eedaysana dacwadan loo haysto ayaa maxkamadda maalintii shalay ahayd waxa ay riday xukunno kala duwan. 9 qofood oo loo haystay lagu tuhunsanaa kiiskaasi ayaa 7 ka mid ah la sii daayay kadib markii wax lagu waayo oo caddayn ah iyo inay ku lug leeyihiin dhacdadan argagaxa leh. 3 ka mid ah oo ay ugu horeyso haweeneyda lagu magacaabo xafsa shariif oo ilmaha eedadood aabahood qabay ah ayaa iyadoo lagu xukumay xukun dil ah oo toogasho ah. kadibna waxa ay goobta maxkamadda ka qiratay in ay iyada falkaasi ay samaysay caruurta ay soo waday isla markaana ay dishay. inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun. muuqaalkaas wuxuu ahaa qaabka markii ay qaranaysay arrin uur ku taalo ah waayo waxa ay laabta ku sidaa cunug umul markaasi ay kala soo baxday oo iyada ay dhashay isla markaana ay u dhashay odaygan qabay iyada ay caruurta ay dishay dhalay. sidoo kale kiiskan gadaal ayaan idinkaga sharaxi doonaa iyo qaabka dareenka uu xambaarsan yahay balse haweeneydan markii iyada la xukumay waxaa sidoo kale la xukumay nin 5 sano lagu xukumay oo asaguna lagu tuhunsan yahay inuu ku lug lahaa. waxaa sidoo kale dadka la xukumay ka mid ahaa dhakhtarka kiiskaas baarayay oo asagu 2 warqadood oo kala duwan oo iskhilaafaya ka soo saaray kiiska kaasoo ahaa in caruurta inta aanan la dilin ka hor kufsi loo geystay. dhakhtarkaas waxaa lagu xukumay lacag gaaraysa $3,000 ah. hase yeeshee arrinta uur ku taalada ah waxa ay tahay haweeneydan kiiska dilka ah geysatay. marka hore ila daawada هيا شرح ما تقول إذا كنت أراد الإثيوب بعد رجال صارت ميلا بغلطنا تجي أنا تجي inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. mawduuca la yaabka iyo argagaxa leh iyo murugada iyo uur ku taalada reebaya waxa uu yahay haweeneydan waa umul oo dhowaan ayay umul ka soo baxday. sida muuqatana kiiska falka dilka markay ay geysanaysa waxay lahayd
oo waxay uur u lahayd caruurtan ay dishay aabahood horeyna waxa ay ugu haysay caruur kaleetood sida warar dheeri ah oo aan ka helay magaalada Baydhabo ay ii sheegeen caruurtan ay dishay hooyadood hore ayay u dhimatay xanuun ayay u dhimatay laakiin muddo aan fogeyn kadib waxaa la sheegay in ilmaha aabahood Dr. Aweys oo ah nin caan ka ah magaalada Baydhabo isla markaana xilal kala duwan ka soo qabtay maamul goboleedka Koonfurland waxaa la sheegay in uu magaalada Muqdisho ku guursaday xaas kaleetood isla markaana muddooyinkii dambeysay uu ku noolaa magaalada Muqdisho taas oo dad badan ay isha ku hayaan in waxa haweeneydan dhibaatadan geysatay falkeeda salku ku haya maseer arrimo la xiriira maseer taasoo dad badan ay og yihiin maseerku in dadka qaarkood uu nooc ka mida waalida ku rido hase yeeshee inkastoo labada arrinba ay kala xanuun badan yihiin oo qofna aan fal dil ah uu geystay uu si bareer u geystay mudnayn in laga cafiyo haddana waxa meesha taala waxa ay tahay haweeneydan waxa ay haysataa caruur oo ilmahan ay dishay ilmo la dhashay ayaa guriga u joogo waxaa intaa dheer cunuga hadda ay nuujinayso oo hadda dhowaan ay dhashay inta kiiska uu socda kadib ay dhashay bilihii ugu dambeeyay ay dhashay kaas oo beri ka maalin looga sheekayn doono markii uu koro in hooyadii la dilay markii uu dhashay kadib isla markaana loo dilay in hooyadiis ay iyadu dishay caruur ilmahaasi la dhalatay bal fiiri xanuunka iyo maxaa la dhahaa uurku taalada ay reebi doonto ilmahaas ku kori doono hooyo la'aanta xanuunka ay dareemi doonaan cuqdada ay qaadi doonaan karhiga uu dhali doono waa laba sheeko oo aan kala liidan marka laga hadlayo dhinaca dareenka xanuunka bini'aadanimo waxyaabaha isweydiinta leh waxa ay tahay maseerku sidiisaba ma waaliba mase wax iska yeelyeel ah dumar fara badan ayaa marka lala guursado dhibaatooyin geysta sida in ay weerar qaadaan gubaan ninkii la guursaday ama weeraraan xaaskii ninkii uu guursaday balse waxay tahay ujeedadu waxa ay tahay in aysan raalli ka ahayn in ninkooda lala wadaago balse ma ahan adiga uu ku fikirayo in aad nolosha aad ku qanacsan waxa aad ku qanacsan tahay in aad heshid darteed inaad dad kaleetood noloshooda aad soo gabagabaysid ama aad ciriiri gelisid taa beddelkeeda haddii aadan ku qanacsaneyn in xaas lagula yeesho noloshaadana ha soo gabagabaynin oo dhibaato madaxa ha la gelin sida tan gabadhan hadda qabsatay oo kale ah maseerkeedii uu sababay in ilmo yaryar oo masaakiin ah oo beri ah oo waxa dhacaya waxa socda aan shaqo ku lahayn ee naftoodii soo gabagabayso ay dhaafiso waxaa intaa dheer in caruurteedii ilmo hooyo la'aan ay korayaan cuqdadna ay ku korayaan iyadoo da'yarna nolosheeda wax aanan istaahilin ay ku soo gabagabaysay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun insha allah waxaan dhawaan idila soo gudbin doonaa haddii ay ii suurta gasho waa tahay inkastoo cadaaladdu ay wanaagsan tahay in qof kasta oo dhibaato geysta lagu qaado haddana kiisaska noocana kiiskan hadda abriil wixii ka dambeeyey waxaa socday baarista markii ay soo gabagabay baarista isla markii waxay soo gabagabowda may waxaa la isugu yimid may maxkamadda dib ayaa haddana loo laabtay baaritaan kale ayaa lagu celiyey kalfadhigan go-aanka maxkamadda ay ku dhawaaqaysa ee xukunada maxkamadda ay ku dhawaaqaysa waxa uu ahaa markii saddexaad oo maxkamadda la isugu yimaado isla markaana kiiska maxkamadda halkaasi lagu soo afjaro iyadoo xukunno halkaasi kama dambays ah lagu gaaray xabso dil toogasho ah lagu xukumay labada qofood oo kalena mid iyada gacan siinayay lagu xukumay 5 sano oo xariga dhakhtarkana 3 sano $3,000 ah lacag inuu bixiyo ah hase yeeshee kiiskan waxaan rajaynayaa in dad badan ay ayaguna dareenkooda ay ka fal celin doonaan anigu ma taageerayo qof dil geystay mana jecel hooyo inay ilmaheeda weyso saas darteed dumarka Soomaaliyeed ee ayagu maseerka marka ay maseeraan dhibaatada amaba gacanka hadan ku orda hal wado laba wado ayaa idin furan ama ku qanac oo iska aamus xanuunkaaga la fadhi oo la noolow ama go'aan degdeg ah qaado albaabka ka bax waayo qofna ma istaahilo naftaada inaad u dhibaataysid
intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkan tiiraanyada leh oo aniga markaan soo gudbinayo xataa aan aad ugu xumahay oo calooshadii ay ibadbadayso intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmayn waxaan idin leeyahay nabadiini iyo nool kulanto sii sheergaree barnaamijka haddii aad ka hesho wixii faahfaahina oo fariimo aad ka haysaan ama sida aad u aragtaanna qaybta commentska iigu reeb adigoo mahadsan